Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi. Haashim ninkii xasuuqay gabdhaha Soomaaliyeed ee magaalada Nairobi qudha lagu dhaafiyay asbuucyadii la soo dhaafay ayaa laga helay xog halis ah waxaana la ogaaday waxyaabaha uu ka ganacsado. Sidoo kale waxa uu qirtay inay gacantiisa ku baxeen dad fara badan oo dhalinyaro ah oo qaarkood tahriibayaal ahaa oo ka maqlasay. Waxaana la ogaaday inuu la shaqeeyo kooxo qowladaysato ah oo ka macaasha carunka bani aadamka iyo sidoo kale xubnaha muhiimka ah ee aadanaha, kuwaas oo ka dhisan dalka dibadiisa. Xaruntooda ugu weyn ay ahayd magaalada Lagos ee dalka Nigeria. Waxaan kula wadaagayaa safaradii Haashim oo la ogaaday inta wadan uu tagay sida Turkiga, Nigeria iyo Tanzania iyo sidoo kale Soomaaliya oo waxyaabo badan uu ku soo qaribay dad badanna oo nolosha u qoonsaday. Haddaba xogahan inta aan kula wadaagin arrimahan banaanka ku soo dhigin waxaan ka codsanayaa muuqaalkan inaad meel fog gaarsiiso shacabka Soomaaliyeed la wadaagto haddii ay jiraan hooyo Soomaaliyeed oo wiilal ama gabdho ka maqan yihiin kuwaas oo ka tahriibay dalka Kenya. Fadlan ha u raadsadaan Haashim iyo sidoo kale dowladda Kenya. Muuqaalka meel fog gaarsiiyo la shargay la wadaag saaxiibadaada waa mahadsantahay. Markii ugu horeysay Haashim ayaa qirtay in gacantiisa ay sababsadeen dhalinyaro fara badan oo magaalada Nairobi, Soomaaliya iyo sidoo kale Ethiopia jooga. Sidoo kale waxa uu qirtay inuu xiriir la leeyahay kooxo ugaarsada xubnaha aadamaha oo ka macaasha carunkooda. Haddaba kooxahaasi waxaa la sheegay inay xaruntooda koobaad ay tahay magaalada Lagos. Marka qaybta Afrika la fiiriyo, Haashim waxa uu safar ku tagay Lagos, waxa uu ku tagay Tanzania, waxa uu ku tagay magaalada Kampala, waxa uu ku tagay dalka Turkiga. Waxaana la sheegay intaas oo dhan inuu kooxahaasi linkiyadooda oo soo xirayay iyagana uu la xiriiriyay. Waxyaabaha la yaab kale ayaa noqdeen in dhalinyaro fara badan oo ka tagay magaalada Nairobi oo maray wadamada Afrika sida Guinea Bissau kadibna ka dhacay Latin America ee dib dambe aan loo arag in Haashim uu ka diray magaalada Nairobi iyo xarumo uu ku lahaa magaalada Kampala. Ugu dambeynna halkaas ku dhacay shabaq uu u dhigay wadamada Latin America. meel jaan iyo cirib ay dhigeen haba yaraatay lama oga. Haashim waxa uu cadeeyay in dhalinyaradaasi isagu uu sabab u ahaa, sidoo kalena dartiis ay Nairobi uga tageen koox halkaas ugu diyaarsaneen gacantooda ay ku dhaceen oo la qafaashay. Haddaba waxyaabaha la yaabeen DCI-du waxay noqotay in qof Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo 30 xitaa gaarin sida uu sheegay sidaas uu wax u farsameeyo gudaha wadanka Kenya isigoo jooga, haddana aan la dareemin. Baaris la sameeyay oo caafimaad waxaa lagu ogaaday ninkan inuu qabo xanuuno maskaxiyan ah, laakiin uu yahay qof garaadkiisa iyo caqligiisa shaqeynayo, haddana ah dadka ku raaxaysta markii ay qof ku dhadhaafinayaan ama sidoo kale ay carunkooda miirinayaan. Waxa uu jecel yahay in carunka bani aadamka uu markaasi gaaro jirkiisa si markaasi uu dareemo farxad. Sidoo kale inuu newska ka daawado waxyaabihii uu baabi'iyay oo markaasi laga sheekeynayo. Tusaale ahaan, fal ayaa dhacay isagu uu geystay newska markii ay bumbuuninayaan inuu markaasi daawado uu ku raaxaysto. Sidoo kale qofka markaasi uu isagu gacantiisa uu ku qurgoynayo ama uu nafta ka qaadayo, waxa uu jecel yahay in cataawgiisa uu si aad ah markaas ugu raaxaysto oo marba xubin ka qaado. Haddaba xanuunadaasi waxyaabaha Haashim laga sheekay ayay kamid tahay, laakiin waxyaabaha ay la yaabeen dowladda Kenya ayaa noqotay intaasoo dhan markuu ninkan wax qasayay inaysan u suuro gelin in markaasi ay soo gacan geliyaan. Laakiin falilah alxamdu hadda waa la hayaa oo waxa uu ku jiraa halkii loogu talagalay oo markaasi su'aalo weydiin ayaa lagu wadaa. Waxyaabaha kale ee la ogaada waxay kamid tahay ama la yaabay in gabadhii isaga sababsatay ee Naciimo Qorane markii la soo qaaday xubnaheeda ee baaris lagu sameeyay lafaheeda la ogaaday in qaybo muhiim ah markaasi ay maqan yihiin, kuwaas oo ahaa dhudhumada iyo gacmaha qaybaha hore. Waxaana markaasi ay dhaqaatiirtu sheegeen in qaybtan uu ninkan mar horeba Haashim ninkii xasuuqay gabdhaha Soomaaliyeed ee magaalada iyo gacmaha qaybaha hore. Waxaana markaasi ay dhaqaatiirtu sheegeen in qaybtan uu ninkan mar horeba calooshiisa galay. Waxaa la sheegay
in hilibkii ama cadadkeedii markaasi si raaxa leh uu ninkan inta u qabtay habaystay mataqaanaa u isticmaalay basbaas iyo moos iyo adduun oo si tartiib ugu cunay kuna raaxaystay nin jecel in waxaasi uu ku qadeeyo kuna quraacdana uu yahay. waa waxyaabo ay la yaabeen baaris xooggan ninkaasi ama su'aal weydiin ayaa ku socota maalinba in yar ayuu qiranayaa. sidoo kale magaalada Nairobi 24 saac oo la soo dhaafay waxaa ku naf waayay tiro 3 qof ah. waxaan rabaa inaan kula wadaago mid walbaba qaabkii markaasi loo sida silaca ah markaasi loo dhaafsiiyey. haddaba nin ayaa la sheegay naag gurigiis ka shaqaynaysay oo 70 jir ah in uu qabtay xubin uu u kala qaaday kadibna uu ku riday baaga lagu qaado waxyaabaha qashinka ah oo si tartiib ah ugu riday. laakiin kuwa qashinka qaada ayaa ugu dambeyn markii ay qashinka qaadayeen waxay meesha ku arkeen cadad saafi ah oo aad dareemayso in waxaana ay yihiin wax qof caadi ah. kadibna waxa ay qaadeen oo la wadaageen booliska baaris dheer kadibna waxaa la ogaaday qofka uu yahay, laakiin guriga looguma tegin ninkii falkaasi geystay oo waa uu tegay. sidoo kale nin ayaa xaaskiisa oo ay arkayaan caruurtii uu dhalay inta qabtay caruurtii oo arkaysa gowrac dhagdhaafa u dhigay, halkaasna gabadhii rafasho kadib ay uga haad caruurtii oo arkaysa. booliska ninkaas inay haayaan ayaa la sheegay. waxaasoo dhan waxay ka dhacayaan magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya. sidoo kale xaafadda Section 3 oo ku taala magaalada Nairobi Eastleigh waxaa la sheegay gabar Soomaaliyeed in iyadana markaasi ay soo gaartay jug xoog leh oo markaasi lafteeda xitaa laga arkayo wajigeeda marka la fiiriyo waxa ku dhaca. haddaba waxaa la isku hayaa ama la isla wadwadaa in gabadha geysatay difeetadaasi ay tahay gabar Soomaaliyeed iyo sidoo kale in ay gabadhan Soomaaliyeed gacan kaga dhacday islaan kale oo madow ah oo isku dhaceen kadib dagaal iyo xarbis dheer kadib dhulka la dhigtay gabadhii Soomaalida ahayd kadibna laga bogtay oo loo geystay waxyaabo amase jugag waaweyn oo wajigeeda la gaarsiiyey. gabadhaas Ilaahay ha u boogadhay. waxaan ognahay Brian Bajaj maalmo ka hor wixii ku dhacay iyo sidoo kale qaabkii tacadiga lahaa ee gabadhaasi saxariirta loogu galay. sidoo kale waxaan ognahay in wiil Soomaaliyeed ee shirqooshay gabar xiriir kala dhaxeeyay oo ka ganacsan jirtay maqaayad iyadoona muuqaaladeeda la soo bandhigay iyadoo nimankii la shirqooy lahaa la fadhiso oo la shiraysa sida ay wax u shirqooleen iyo sidoo kale mootaaleydii markaasi ka dambeysay ninkaasi in noloshiisa la qoonsado. booliskuna waxa ay sheegeen in dadka qaarkood ay gacanta ku hayaan oo ay yihiin kuwa xirxiran ilaa iyo 6 qof, 2 waardiye, 2 wiil oo Soomaali ah iyo 2 gabdhood oo Soomaali ah oo ay ka mid tahay qofkii gacanteeda ku shirqooshay wiilkii nafsada la dhaafsiiyay Allah u naxariiste. haddaba intaas kaliya ma ahana wiil kale oo Soomaali ah ayaa barta madaxa ah waxaa laga gaarsiiyey jug culus oo ugu dambeyn ku kaliftay in isbitaal uu galo oo ilaa ay hadda yahay mid liita. Ilaahay caafimaad taama ha siiyo. waa ku baasitii muuqaalkan meesha la gaarsiiyo mahadsanid.